Soomaaliyeed dhammaan baaq baan u diray intii dhaka maqashay ee dhaqaale ka dhowratiyo intii dhiig iyo naftaba dhuuxooda u soo dhureen marnaba aan ka dhowrsanayn dhaqaaliya maalka hadal dhaawac beledweyn ku dhacay boogtii waa laga dhayo dhaliil weeyaan adduun dhib iyo ugu filan hantaaqo haddana lama baajin karo wixii boqorkeenu qoray mid baan si bayaamin laa bulshooy moogtahay adduunka waxa ay fayee dhalaala waxaan intifaacsanayn waxaan arkayn ee maqlayn waxaa aradkaba qarqiyay awoodda allah iskale mid kale aadama unkee Soomaaliya waa qabiilo dhaqaale weeye haddii laba qoys darsaan haddii qayradhaan la diro dhaqaale hub laga dalbado dharaar kuma qaadatee qurbaha laga soo dhigaa adigoo qoysu hiirinaya adigoo qarankaaga dumiyey adigoo dadka kala qoqobay maxaad ugu qaylisaa qorshaha Soomaaliyeed inaga qarankeena maaha qabyaaladan waadaxa maxaad ugu qaybisaa bulshada qiimaha leh waxay isu qaban karaan jeebkooda ka quudhilaa haddaan qoysnimo ku faano haddaan qorigaa la sidan haddaan qarannimo la tuurin qiimaha Soomaali jabin dhexdeena ku qaybsan cadowga qaaradaha adduunku dhulkeena ku qaybsadeen Soomaaliya qaranka dhaaftay qabiil wax ka dheefi weyne haddaan magaceena taagno midnimo waataynu gaarno tolkiyo xididkiyo xigaalka haddaan xeerino wanaaga haddaan xasadkiyo xumaanta dhexdeena ka saarra xoolka haddaan taa kula walaale maalinba tiirkii dhacaya gacanteena ku toosinayn ismada guushaan sugayna horaa loo taabsanaa beledweyn waa tiirka nolosha haddaan saracaa la caawin haddaan loo dhigan salaamo haddaan laga wada sanqadhin inay tahay nolosha maanta milkaha Soomaali leeday muraadka siyaasideedin maxaad cid kaleba weerarsan afkaaga aadi ku gabay waxaan baaq fariin u diray intii beledweyn tagtiyo intii tacadiga dhacdada dhankooda ka soo wadee marnaba aan ka dhowrsanayn dhaqaaliyo waxaan baaq fariin u diray intii beledweyn tagtiyo intii tacadiga dhacdada dhankooda dushaasun kala socday marnaba aan ka daalanayn damaqaabada walaalaheen ilaahay dushooda suray waxaan digniin culus u diray intii jiidh ila damqada daayimkeen inoogu daray dubkaygiyo diirka madow misana diidee ka hadhay allaa deeqaha baxshee ducali waashaysadee dhaqaalabayuu ku darinay ninkii kala dhowrsado dhitaad dogate ogow allaha qaniyaa awood leh inuu tusaa muhiim ah markaasaad garan lahayn qiimaha aan leenahiyo sidaan isu caawiniyo culayska dhexdeena yaal inta aanan ka guda bixin barnaamijka waxaan jeclaa in aan ka hadlo barnaamij yar oo uu soo geliyey Cabdiraxmaan Xirsi wiilka la yiraahdo Cabdiraxmaan Xirsi janankiisu waa janan weyn weeye oo bulsho badan ku xiran tahay Cabdiraxmaan Xirsi anigu magaciisa uun baan u aqaanay kulay Instagram-ka ugu qoran marka wuxuu soo geliyey shalay iyo daraad shalay berberasagoo jooga ayuu video soo geliyey videogaas wuxuu ka hadlayaa Soomaalinimada macnaha maxay ka timi ma wax samays ahba oo si muhiimka mise waa wax run ah oo waxa weeye wada dhalasho ah haddii aan ku yara noqono xagga taariikhahanada history waxay baaraan prehistory iyo history baa kala jira taariikh qoran iyo midaab qoran wixii hore aan qorayn maba qora wixii dambe qoran laakiinse qof waliba wuxuu uu ku tilmaamo ha u qaato dad yoga waxa loo eegaa af iyo dhaqan baa loo eegaa af iyo dhaqanka Soomaaliyeedna waa hal mid waa laba af malihiin hal af ayaynu leenahay iyo hal dhaqan baynu leenahay markaas sidaa awgeed Soomaali waa hal mid dadka aaminsan shan Soomaaliyeed baa jira anu ma aaminsan shan Soomaaliyeed baa jira laakiin shan astaamood ay leeyihiin baa jira shan astaamood oo Soomaali leedahay baa jira laakiin Soomaalidu waa hal mid calan maaha ama Jabuuti joog ama Hargeysa joog ama Muqdisho joog ama Gaarisa joog ama Jigjiga joog Soomaali waa hal mid laakiin shan astaamood ay leeyihiin calankuna ummad maaha waa astaan marka diyaanu soo laabto Cabdiraxmaan jawaabtiisa wuxuu yiri hadii aan 24 saac gudahooda aydan igu soo jawaabin oo ii sheegin waxa maxay tahay Soomaalinimadu tahay waa ka baxaya Soomaali masaari baan noqonayaa hadda hor waxa dhacday oday reer mudugaba waxa la yiri wiil dhalay baa tahriibay kadib wiilkii markii uu Mareykanka tagay ayuu yiri aabe
maalintii ma soo wacay odaygu iska reer baadiyaa xoolo dhaqataaba reer guuraaya markaasuu yidhi aabe waxaan dee meeshii baan tago waa iskala qabsado waa iska fiicanahay laakiinse bushaara aaba masuu yidhi bilkhayr masuu yidhi aabe diintii islaamka ka baxo tii kristanka qaata dabeetana masuu yidhi alxamdulilah waa ilaahay mahadii aabe haddaad foolxumada diintii islaamka kala baxday cabdiraxmaan iminka waxaan leenahay afxumada aad soomaali qaarna Chinese ku sheegtay qaarna Kenyan ku sheegtay qaarna Ethiopian ku sheegtay qaarna Masaari iyo Carabiyiin ku sheegtay haddii aad kala baxdo adigu Masri madow sheegatay waa alxamdulilah